bal ka waran daawada maxaad samaynaysaa adiga ahaan haddaad iska soo qaadid tusaale waxaad ka soo degtay xafiiskaada gabadhaada sekretarigan ayaa kafee yar kuu soo dhiibtay laakiin kafeega ayaad qaybta hoose ula soo degtay adigoo xilligaas doonaya inaad baabuurka la raacdo goortaasi qaybtii hoose timid ayaa mid ka mid a gabdhihii waddooyinka jiifta micnaha dadka homelesska mid ka mid a shaahi ay dafkaa tiri waxayna xilligaas bilowday dhulka inay ku daadiso kadibna aad baad u carootay waxaana weydiisay sababta iyadoo xilligaas kugu tiri micnaha sun ayuu leeyahay soo dhowaada saaxiibayaal taas waa qisadeenna maanta si aan bal u fahna dib ayaan u laaban doonaa naga hub inaad muuqaalka like saartid janaalka daad subscribe saartidna waa mahadsan tahay macnaha waa sharfantaan ka wada aan gudaha u galno horta ninkan qisadiisa ay maanta ku dhacda waxaa lagu magacaabaa john waa nin taajira ilaahay hanti u dhiibay nolol wacan ayuuna ku nool yahay micnaha waxa uu ka shaqeeyaa mid ka mid a kambaniyada ugu waaweyn dalka nigeria inkastoo ninkaas waxaasoo idil haysto haddana kambaniyahaasoo idil ou maamulo waxaa jirta hal cillad oo keliya isaga dhankiisa cilladaasna wax kala maahane ee horta 3 sano ayuu wuxuu qabaa gabar lagu magacaabo amanda waxayna ku nool yihiin nolol aad u qurux badan guri aad u weyn laakiin 3daas sano isqabaan wax ilma iskuma aysan dhalin nina ilaahay ilmo ma uusan siinin marar badan ayuuna ninkan isku dayay inuu helo laakiin mase waa uu ku guuldaraystay maalin maalmaha ka mid a ayaana xaaskiisa ammaanda iyo weliba asagu waxay isku raaceen isbitaal iyagoo bal xilligaas doonaya inay ogaadaan caqabada weyn meesha ay tahay kadibna dhakhtarka ayay xilligaasi la kulmeen baaritaan uu sameeyey uu ka qaado ugu dambayntiina waxa uu xilligaasi dhakhtarkii soo saaray go'aan cad isagoo xilligaas yiri markii baaritaan aan samayno wixii noo idil waxa ay tahay xaqiiqdu in labadiin aad caafimaad qabtaan oo ilmuhuna ayaga ay xilligooda imaanayaan arrimahana ilaahay ayaa ku shaqo leh marka waxaa laynkaga baahan yahay inaad isaga dulqaadataan xilligaas uu dhakhtarka sidaas yiri john arrinkaasi ma uusan farxad gelin laakiin qof ayuu farxad geliyey qofkaasna qof kale maahane ee waa gabadhii amanda aad bayna arrinkan ugu faraxday laakiin john ayaa xilligaas mar kale ku yiri laakiin see camal dhakhtar maxaa jira dhibka weyna maxay tahay haddii baaritaan aad samaysay dhakhtarka ayaana ku yiri dulqaadka sameey ilmuhu way isku imaanayaan oo xilligooda ayaan sugaynaa ilaahay ayaana qorshihiisa wata waa inaad sugtaan xilligaas ayuuna john yiri laakiin 3 sano wixii waa xaddaaf laakiin dulqaadka sameey ayuu mar kale dhakhtarka ugu celiyey laakiin ayni celiyo markuu dhakhtarkii sidaas yiri dulqaadka sameey amanda wejigeeda waa laga dareemay xilligaasna aad bay u faraxday sababtuu u faraxda mataqaanaa wax kale ma ahane amanda subax hore intaysan labadooda isbitaal ka imaan micnaha john iyo amanda ayaan ka hadlayaa ayay kusoo hormartay dhakhtarka iyadoo xilligaas xoogaa yar oo lacaga gacanta ka saartay waxayna ku tiri xilligaasi dhaktari dhegayso waad og tahay dhibaatada idil aniga dhinacayga inay tahay laakiin waxaan kaa rabaa hal arrin ay samaysid arrinkaasna wax kale maahane ee markii baaritaanka la sameeyo waxaan kaa rabaa inaad u sheegtid in labadeenna wax cilad aana qabin sababtay sidaas u samaysana mataqaanaa sababta ugu weyn waxa ay tahay waxay diiday xaqiiqada in la ogaado sababtoo gabadhani way aayeen gabdhaha macnaha jirkooda ka ganacsada sidaa darteedna mar ayay uur qaado nin kale ay la jiifatay sidaa darteedna markii uurkii uu kusoo baxana ayadan waxay bilowday inay ilmaha iska xaaqdo markii ilmihii laga xaaqana dhibaato weyn ayaa soo gaarto inay nafteeda ay ku weygarto ilaa laga saaray qaybtii woomga macnaha ugxanta ayaa laga saaray ayadana sidaa darteed wax ilmo ma dhali karto oo uur dhan macnaha ma qaadi karto maadaama ugxaantii iyo woomkii laga saaray sidaa darteedna aad bay ugu farxda markii dhakhtarkii intaasoo yiri laakiinse habeennimadii markii gurigay kusoo laabatay waxay bilowday inay arrinkan amanda aad uga fakarto sababto xilligaas way xaqiiqsaneed in ninkan hadduu arrinkan soo ogaado in wax walba faraha ay ka bixi doonaan iyadana ugu dambayntii waxay bilowday maskaxdeed inay ka shaqaysiiso amanda way ogeed in arrinkani faraha ay ka bixi doono mar uuna ninkan xaqiiqda ogaa doono iyadoo xilligaas bilowda maskaxdeeda inay ka shaqayso 3 asbuuc ayaa ka soo wareegatay maalin maalmaha ka mid a john inkastoo haddana ilmihii aad uga fakarayo haddana amanda mar walba waxay samayn jirta wax walba ay farxaddiisa ay ku dejin karto kusoo jiidan karto labadooduna farxaddii qoys ayay isaga noolaayeen laakiin maalin maalmaha ka mid a sida caadadiisa intuusan shaqadii aadin ayay quraac u diyaarisay quraacdii ayaana xilligaas u keentay kuna tiri xaaji quraac arrinka la surprise waa ku hayaa isaga xilligaas uu la yaabanay arrinka surprise-ka markuu quraacdiisii dhammaystay ayayna ugu dambayntii waxa ay ku tiri dhegayso arrinkan ku hayo waa arrin adiga ku farxad gelinaya weliba xilligaas aan aamini karin isaga xilligaas uu aaminay wuxuuna ku yiri gacalis cayaartiga daaye arrinkii sheeg
waa ujeedaa shaqa ayaan u socdaa, weliba waan degdegsanahay, waxaana doonaya inaan shaqada ka gaare. Amanda ayaana ugu dambayntii waxa ay soo saartay geedkii yarka ah ee macnaha caddeynayay inuu qofkan uur leeyahay, waxayna ku tiri gacaliye finally I am pregnant, macnaha uur ayaan leeyahay. Goorta hoose intaasi arkay ninkii John ahay wuu aamini waayey, waxuuna ku yidhi are you kidding, macnaha meelo kaftamaysaa. Iyadana xilligaas waxay tiri maya maya, macnaha kula kaftan maayo. Ugu dambayntii uur ayaan qaaday. John xilligaas indha ayaa ka soo haray wuuna aamini waayey, isagoo xilligaas neef qaatay, sababtoo waxa uu maqlayo waxay ahayd inuu maqlo mar hore, weliba sannado hore. Xilligaas ayaa ilintu ka soo daadatay, waxa uuna bilaabay inuu istaago, isagoo xilligaas gacalisiisa habsiiyey. Waxuuna xilligaas ku yidhi gacalisa waad iga farxisay, weliba waxaad ileedahay hadda wixii ka dambeeya waxaan noqonayaa aabbo. Tan waa midii iigu horreysa, weliba farxaddii iigu wacneed aan mar arko. Wuxuuna xilligaas ku yidhi caawa waan dabaaldegaynaa isdiyaari. Isagoo xilligaas faraxsan ayuuna wejiga ka dhunkaday, waxuuna ku yidhi gacaliso hadda wixii ka dambeeya wax walba aniga ii daa, adigana waxaan kaa rabaa gurigaas inaad iska cunti iska cabtid, cunugaas yarkaana ii daryeel ii ilaali kulaha, wax walbana aniga igu daa. Isagoo xilligaas farxaddiisa aan la qiyaasi karin ayuu tartiib shaqadiisa iska soo aaday, weliba xilligaasi waxaaba la qaataba xitaa shaqada inuu iska joojiyey, isagoo xilligaas yidhi maanta waa maalintii iigu farxadda badneed, waxaana noqday qof nasiib leh maadaama ugu dambayntii aan hadda aabba noqonayo, cunugaygan aniga aan daadihinayo. Isagoo xilligaas faraxsan shaqadiisa ha imaado, kadibna sekretaradiisii ama gabadha xogayaa u ahayd ayaa xilligaas la wadaagtay war kaloo aad u farxad leh. Warkaasna wax kale maahane xilligaas waxay ku tiri mudane kambanigeenna waxa uu ku guulaystay inuu qaato waddada dhismaha isku xidhaysa Lagos ilaa Calabar Coastal, waddadaasna annaka ayaa dhisaynaa. Goortoose ninkii John intaasi maqla wuxuu yidhi waaw, waa farxad labaad, isagoo aad u farxay. Waxa uuna yidhi tan maanta ma ahan mid xitaa farxad lagu soo koobi karo, weliba farxadda maadaama maanta ay igu timid laba farxad, tan koowaad oo in xaaskayga weli qaaday, weliba tan waddada dhismahan ku guulaystay. Si kastaba ahaatee ninkii John aad buu u farxay, ilaa ugu dambayntii habeenimadiina guriga isaga soo laabtay, isagoo weliba farxaddiisa aan la qiyaasi karin. Maalmuhu waa ay socdeen, waqtiguna wuxuu isku dhiibayey waqtiga xiga, maalintu macnaha isbuucuna wuxuu isku dhiibayey bilaha. Ninkiina waxa uu bilaabay inuu xaaskiisa aad u daryeelo, had jeerna wuxuu u soo iibin jiray hadiyado aad u qurux badan, isagoo xilligaas dhahayay gacalis iska taxadar, tartiibtaada, wax dhib ku ah adiga ha qaban. Intaas ugu weynna wuxuu u sameynaya waxay tahay in cunugaas mar uun arko. Laakiin arrinka qarsoon Amanda mar walba ninkaas dhoolla caddaynta tusto qolkeeda ayay soo geli jirtay, kadibna waxay bilaabi jirtay inay ka murugooto. Mataqaanaa waxa ay ka murugoonayso wax kale maahan ee gabadhan uur ma laha. Arrinkaas oo idilna waxay u samaysay ninka inuusan ka fogaan, oo gabadhan wax uura ma leh. Xaqiiq qarsoon ayaana meesha ku jirta. Amanda mar walba waxay ka cabsanaysay inay arrinkani ninkeeda ogaado, had jeerna waa ay ka ilaali jirtay, iyadoo ka cabsanaysa sirteeda inay ugu dambayn mar uun bannaanka soo bixi doonto. Sidaasoo kale waxay xaqiiqsaneed in ninkani haddii runta u ogaado oo iyada nici doono, inaha bannaanka loo tuuri doono, farxaddeedina halkaasay ku burburi doonto, iyadana waddooyinkay ku noolaa doonto. Si kastaba haatee mar ay ka soo wareegtay asbuuc ayaa Amanda waxaa ku soo kortay arrin kaloo cajiib ah, weliba arrinkaasi aysan filaynin. Waxaa timid gabar kale, gabadhaasna qof kale ma ahane ee waa Chidera. Chidera haddaan inii sheegnana waa gabar kaloo sheekadana kusoo biirta, waxay la dhalatay ninkan John. Xilligaas Amanda balkoonka ii taagneed, gabadhaana soo socota markaa la way aamini weysay, waxayna tirisay camal ilaa ugu dambayntii mobilkeeda uu soo dhacay. Ninkeeda John ayaana soo wacay kuna yidhi gacaliso maadaama adiga maalmahan xaaladaada aysan wacnayn, gabadhii walaashay oo xilligan iskuulkii fasax soo gashay ayaa waxaan rabnaa guriga inay nala joogto, weliba adigana ay ku caawiso. Lana soco keliya 2 asbuuc ayay joogaysaa, kadibna waa ay tegaysaa. Amanda xilligaasi neefta ayay dib u laqday, waxayna ku tiri walaashaasi camal maxaad mar hore iigu sheegi weysay. Isagana waxa uu ku yidhi dhimale waa ka yara mashquulay, marka hadda holiday ayay ku jirtaa oo labadaasba waxaan rabaa inay ku caawiso maadaama adiga aad uur leedahay, adigana waxaan kaa rabaa inaa ilmaha aad ii ilaalisid. Amanda xilligaas koolkii markuu dhammaaday aad bay u naxday, wadnihiina waa uu gariiray, sababtoo xilligaas waxay xaqiiqsataba wax walbaba beenteeda inay bannaanka u soo bixi doonaan. Laakiin waxay tiri maya, waa inaan macnaha sirteeda aan ilaaliyaa. Sideerna ma doonayo sirta inay bannaanka keento, iyadoo xilligaas cabsi badan gashay, bilowdana inay isdejiso. Si kastaba haatee qaybtii hoose ayay u soo degtay, ilaa gabadha yarta Chidera ee halkaasi kula kulantay. Xilligaas ayayna ku tiri
waan ku salaamay Dimaash. Horta Dimaash waa helo. Dimaash haa, Dimaash waan ku salaamay subax wacan. Xilligaas ayayna ammaandu aad u caraysan. Weliba wejigeeda laga gara karo dhoolla caddayn ayay waxa ay ku tiri kaale maxaad halkani ka samaynaysaa? Tan kale maxaad iigu sheegi weyse inaad halkaan imaanayso? Xilligaas ayayna gabadha Janeero waxa ay ku tiri aniga maadaama horta iskuulkii fasaxa uu yahay 2 asbuuc ayaan rabaa halkan inaan joogo. Tan kalena waxaan soo wacay walaalkay isaga ayaana guriga iisoo tilmaamay. Bas ayaana ku imid. Ammaanta xilligaas aad bay uga murugootay arrinkani. Kadibna gabadha Janeero maadaama uu bagi weyse gabadhan qolka waxay iska aaday martida iyadoo xilligaa isaga nasatay. Laakiin Ammaanta arrinkani waxa uu la noqday dhagax weyn oo iyada dusha laga soo saaray. Waxayna bilowday arrinka inay ka fikirto sidii ay ku xalli lahayd maadaama arrinkan aysan dulqaadan karin. Gabadhan oo guriga joogto waxay ka dhigan tahay sirteeda oo idil bannaanka inay timaado. Hadday taasi dhacdana inaha gurigan waa ay ka baxaysaa. Sidaa darteedna iyada meel cidlo ayay ku dhacaysaa. Maanta waxay bilowday inay samayso wax walba oo gabadhan guriga uga saari karto, inkastoo haddana aysan dhici karin. Habeennimadii markii ninkii guriga uu John ku soo laabtana waxay ku tiri gacali ani waad ogtahay uur ayaan leeyahay. Marka waxyaabahan stresska oo kale aniga waa ay dhibayaan. Marka sidaa darteed adiga gabadhan walaasha Chidera ina aniga comfortable kuma dareemayo maadaama aan uur leeyahay. Marka waan ku baryaa gabadhani guri kale u dir. Xilligaas ayuu ninkii John wuxuu ku yidhi gacali isdeji. Gabadha waxay nala joogaysaa waa 2 weeks. Inaha 2 asbuuc oo kaliya. Kadibna waa ay tegaysaa. Marka uu dulqaado intaas yarta. Xilligaas Ammaanta inkastoo isku dayday ninkii inay ku qanciso haddana waa ay ku guuldareysatay. Xilligaasna waxay istiri arrinkaadii waa uu fashilmay. Laakiin ayadu intaas kaliya ma samayne. Arrinkaas waa laga gudbay ninkeedana waa ay ku guuldareysatay. Haddana waxay isku dayday wax kale oo ay gabadhan guriga uga saari karto. Maalin ayayna xilligan gabadhii Janeero iyadoo fadhiisa qolka fadhiga TV-na daawanaysa ayay u soo gashay kadibna TV-ga ayay ka damaysay waxayna ku tiri kaalay adee guriga waxaa lagu keenay TV inaad daawatid macnaha mise inaad inta iska fadhiisid alaabtii wasakhdaan halkaasay dhooban tahay ma waxay iga sugaysaa inaan jikada ku galo cuntaan kuu soo kariyo alaabtan aan dhaqo waxna ayaa istaag waxaana doonayaa inaad alaabtaas iga soo nadiifiso jikadana iga soo kalaabayso gurigana sidaasoo kale aad iga tirto Janeero waaba gabar degan kadibna waxay tiri aad baan naga xumahay marwo hadda ayaan soo nadiifinayaa inaha guriga oo idil weliba isagoo nadiifa wax buuq iyo weliba dhibaatana ma aysan samaynin iyadoo isla markii firdig tiri maanta xilligaas waa ay la yaabtay waxayna tiri wow saaco leh gabadha waxay ka sugaysay inay la doodo buuq la samayso kadibna arrin weyn oo sidaas soo dhaco laakiin gabadhii sidaas ma aysan samaynin Amanda xilligaas waxay tiri maya waa inaan qorshe kala keenaa weliba gabadhan aan guriga uga saari karo sababtoo tan maahan mid loo dul qaadan karo ayadana waxay ka cabsanaysaa 2 asbuuc oo guriga joogtaba in arrinka oo idil uu fashilmo iyadana sidaa darteed arrinkeeda idil uu soo dhammaado maanta maskaxdeeda waa ay ka shaqaysiisay waxayna tiri Janeero intii halkaani joogto lagama yaabo guriga inuu farxad uu ku noolaado inaha ayada ay ku joogto farxadan ka wadaahe maalinku waa uu socday ilaa 2 maalin ay ka soo wareegatay maalinse Amanda waxay aragtay in gabadhan yarta Janeero wax walba sidii uu fiicnaaday u qabanayso xilligaas ayayna ayadoo howl wada saag martay xilligaas ayay Janeero waxay ku tiri waan ku salaamay Dimash xaaladaada iga waran laakiin xilligaas Amanda way iska dhaga tirtay oo hadalka ma soo qaadin waa ayna ka tagtay xilligaas Janeero waa ay la yaabtay waxayna ku tiri si camal Dimashadii maxaa ka qaldan waxayna sidaan ugu dhaqmaysaa inaana wax qalad ayaan u geystay dana Janeero waxay ahaydba qof degan waxayna tiri kaliya wax meesha ku joogto waa 2 asbuuc kadibna waa ka tagaysaa oo weliba hadda maalmo ay tageen inkastoo Janeero haddana istiri armaad ka tagtaa meeshaan maadaama xilligan farxad aysan ku dareemayn haddana ma aysan ogeyn xilligan waxay Amanda u xanaaqsan tahay iyo weliba dabeecadaha xun ay la soo baxday ay gabadhan masaakiinta ay kula dhaqmayso si kastaba ahaatee Janeero waxay bilowday inay isaga dul qaadato maalmuhu waa ay gudbeen asbuuc ayaana laga soo wareegay asbuuc kadib gabadhii Janeero maray hawsheedii iska dhamaysay iyo qolkeeda iska gashay wayna iska seexatay maanta arrinkaas Janice ayay u heshay xilligaas ayayna soo baxday waxayna bilowday inay qolkeeda ugu soo gasho weliba iyadoo xilligaas baaldi biyo wada baaldiga ayayna qolkii la soo gasho waxayna aragtay gabadhii xilligaas hurdaysa markaas ayay Amanda baaldigii biyahay gabadhii dusha geeb uga siisay xilligaas Janeero way aamini weyso hurdadii ayayna ka soo booday iyadoo xilligaas la yaabtay dhaqanka ay samaysay maamadani micnaha gabadhan Amanda xilligaas
ayay waxay ku tiri maxaa kaa qaldan xilligaas ayaan ammaanta iyadoo xanaaqsan ku tiri aniga ayaa i weydiinaysaa waxa iga qaldan maxay tahay xilligaa jiftid weliba iyadoo howlo badan ay gurigan ku yaalaan taasi ma ahan mid la aqbali karo anigana taasi kaa yeeli maaye xilligaas ayayna gabadhii jineera tiri an wax walba waa nadiifiyey gurigo idilna waa nadiif wax wasaqaysanna ma jiro howshiina waa iska dhameeyey ee maxaasaan u samaysay ammaantan xilligaas kula okay oo hadda waad tillaabsata macnaha aniga ayaa waxay ugu wacaysaa inaan qof been sheegaya iyadoo xilligaas bahal dharbaaxsha wejiga uga dhufatay xilligaas jineero way u dul qaadi weysa waxayna ku tiri horta aan ku weydiiye kaalay maxaase aan maalmahan ila dhaqmaysaa tan kala dimaashada ayaa tahay anigana waan ku xushmaynayaa marka habdhaqankan maalmaha ay la dhaqmaysa aniga kama heliyo weliba dabciga noocan ee falxumada badan hadday la soo baxday xilligaas ayayna bilowday ammaanta oo jaanis u fahantay waxayna ku tiri aniga buuqyo qaylo ma rabo gurigan wax u joogto waa taqaanaa aniga haddii fasaxa ku jirta haddii kale xubin ma gelin waxaan rabaa hawsha guriga inaa iga qabatid guriga markaa timid oo idilna dhibaato iyo qashin wax walba ayaaba ii yimidba dhib walban adiga ayuu kaa soo baxay xilligaas jineera aad bay uga carootay arrinkani kadibna waxay xilligaas bilaabeen labadii inay meesha isku dagaalaan lana soco gabadhan uur ayay leedahay oo waxaan ka hadlaya ammaanta run maahan laakiin waa qorshe ayadu ay wadatay kadibna xilligaas ammaanta jaanis ay meeshay ka heshay iyadoo xilligaas macnaha dhulka isku turtay kadib maaqan moqoshay awal hor uu soo degtaya waxay bilowday caloosheeda dhiig inuu xilligaas ka soo daato maaqan ma wax ay gudaha gashatay wax kale waxay yihiin waa sida ay sheekada ku socotee ayay isla markiiba ninkeeda la xiriirtay iyadoo xilligaas ku tiri war ninkaygii u soo carar war xaaladdu faraha ayay ka baxday gabadhii ammaanda ahayd waa ila dagaashay weli dagaal maahan ee xitaa waxyeele ayay gaadhsiisay weliba xilligaas gabadha ammaanda waxyeele ayay ayada isku gaadhsiisay xilligaas iyana waxa ay bilowday ay ku tiri ninkaygiiow cunugaygii waa uu dhintay sababtan wax kale maahan ee gabadhan walaasha ayaa wax walba ugu wacan ee hadda iga soo gaar weliba wax weyn ayay soo gaadhsiisay xilligaas jineero waa ay yaabtay ninkiina isla markii shaqada ka soo orda kadibna guriga ha yimaado horta si aata u yimaadaba xaarka dhiig meeshii ku daasan weliba gabadhii ammaanta caloosheeda ahayd kadibna walaasha ayuu kusoo jeestay waxuuna ku yidhi maxaa sidaan u samaysay jineera xilligaas waxay tiri walaal waxaa jira maahan gabadhanna waa qorshe ay wadatay aamin laakiin xilligaas john aad buu u caraysnaay sababtana wax kale maahan ee ilmaha ninkan waa uu ku dhintaa isagoo xilligaas walaashiisa ku yidhi qorshahan mar hore ayaa kasoo degtaan waa ku dareensanahay waxaadna doonaysaa guriga inaad burburiso maahano maantana ma waxaa gaartay reer aa wax gaarsiisid xaaskayga weliba ilmihii caloosheeda ku jira taasna macquul maahan jineer ayaana tiri been ayay kuu sheegaysaa wax ka jirana ma leh dhibkaanoo idilna ayada ayaa isgaarsiisay xilligaas john ma uusan dhegaysan walaashiis wuxuuna ku yidhi qaladkii ugu weynaa anigu waxay tahay inaan gurigaani ku keenay haddana waxaan kaa rabaa guriga inaa ka baxdid xilligaas ayuuna ku yidhi bax boorsaada qaado gurigaana ka bax xilligaas walaashiis waa ay badhisay waxayna ku tiri war aniga gabadhan wax maana geysan go-aanka qaldan aa qaadanaysina jooji laakiin john ma uusan dhegaysan waxuuna ku yidhi hadda waa inaad guriga aad ka baxdaa iyaduna isla markeeda oyeysa ayay meeshay ka tagtay kadibna boorsadeeda ayay ka jiidatay oo micnaha halkaas ayay ka carrawday si kastaba haatee john iyo xaaskiisa ayaana markaana isku soo laabtay john xilligaas wuxuu xaqiiqsadaba gabadha inuu cunuga uu ka soo dilmay iyadana xilligaas waaba jaaniska ay raadinaysay qorshahan hore ayaba gabadhan uga sii baaraan degtay iyo weliba in arrinkeeda aama la ogaanba si kastaba ahaatee habeennimadii markii la gaaraba john gacalisays ayuu iska soo ag fadhiistay micnaha ammaanda oo xilligaas xaaladeeda aydan wacnayn waxayna xilligaas ku tiri aad baan uga xumahay maadaama cunugii aan ku riyoonaya maroon ina adiga aan ku dhalo maanta oo halkaasi ku geeriyooday laakiin john ayaa xilligaas yidhi qaladka idil waa aniga sababto anigu waan ku ilaali waayey ilaalintaas aan ku ilaali waayey yaana maanta cunugii aan ku waayay xilligaasi john waxaa laga dareemaya ilmada iyo weliba qoomada isagoo ka qoomeynayay in gacalisaysa garabkeeda uu kasoo muuqa waayay xilligaasi gabadhii jaanis ayay u aragtay wayna ka faa'iidaystay waxayna ku tiri ka hali isdeji ilmo kale waa aan dhalaynaa weliba waxaan rajeynayaa in ilmo dhowaa ay noo dhashaan marka kan waa midka ugu horreeyey hawelwelin tan kale walaasha haddaysan gurigan noo keeni lahaynna maanta waxaasoo idilmaba dhici lahayn laakiin iyadu xilligaas qalbiga farxad ayay ka dareemaysay maadaama ay ogaatay ninka hadda inay gacan ku dhigtay weliba markaani ay rajeynaysa in iyada ay maamuli karto taasoo ka dhigan riyadeeda inay ku guulaysatay laakiin john xilligaasi maadaama xaaladiisa ay usu wacnayn waxau ku yidhi gacalisa bannaanka ayaan aadaya waana soo laabanayaa maadaama ay hadda xaaladeeda aysan wacnayn si kastaba ahaatee ninkii john ahay xilligaas waa uu soo baxay kadibna wuxuu soo aaday dhankaasi bannaanka
isagoo baabuurka isla markiiba iska soo kahaystay, wuxuuna xilligaas doonayay jawiga inuu iska soo beddesho. Si kastaba ha ahaatee, baabuurka suu isaga soo watay ayaa ugu dambayntii waxa uu soo gaaray meel baar ah, meelahan baarka ee cabitaanka lagu cabo. Xilligaasna isaga xaaladdiisa ma aysan wacnayn, wuxuuna xilligaas ka qoomeynayay oo isdhahayay asagoo isla hadlaya, aniga ayaa qaladka oo idil iska leh xaaskayga maanta ilmaha inay weyso. Ayuu ugu dambayntii baarkii soo istaagay gudaha ayuuna u soo galay. Goorta uu u soo galo wuxuu arkay dad fara badan inay joogaan, kadibna qaybtiisa ayuu ka fadhiistay, wuxuuna bilaabay xilligaasi inuu meeshii cabitaan ku cabo. Sababtoo cabitaanka xilligaas u cabayana wuxuu isdhahayay xaaladda ku dejiyey, maadaama raggan ay yihiin rag aan muslimiin ahayn, marka iyaga ayaa wuxuu iska walwalaaqanaye. Ninkani cabitaanka ayuu bilaabay xilligaas inuu iska dalbado, weliba cabitaanka uu ka awood badan yahay ayuu bilaabay inuu halkaasi ku cabo. Xilligaasna wuxuu isdhahayay bal stresskan yarka isaga deji. Isagoo meesha isaga cabayana ayaa kursiga dhinaciisa waxaa soo fadhiisatay xaajiyad kale, gabar yar oo aad u qurux badan, waxayna ku tiri, waan ku salaamay, magacaygu waa Aluwa, waxaan ahay gabar muusikada iyo waxyaabahaas ka shaqaysa, ka waran haddaan isbaranno. Xilligaas ayuu isaga laftirkiisa iska kiciyayo, inkastoo cabitaanka haddana ku dambeeyo. Wuxuu ku yidhi, anigana magacaygu waa John. Xilligaas Aluwa waa ay dareentay ninkan xaaladdiisa inaysan aashayn, waxayna ku tiri, ma wax dhib ayaa jira? Isagana xilligaas ha bilaabo inuu si daacad ula hadlo kuna yidhaahdo, waxyaabo badan oo stress ayaa jira, ninkan aad ba ula dhacay gabadhan iyo siday u waraysanayso. Iyagoo halkaas habeenka idil ku sheekaystay, cabitaan fara badan ku cabay. Ninkani markuu cabitaankii ku dhargaana, calooshii iyo weliba iska buuxsameen, meesha ayuu bilaabay inuu ka soo kaco si uu u soo baxo. Xilligaas ayaana Aluwa bilowday inay ninkii caawiso, dareentana in cabitaan fara badan uu cabay. Kadibna waxay bilowday inay soo kaxayso, waxayna u soo kaxaysay dhankaas iyo baabuurkii, iyadoo xilligaas doonaysa inay caawiso. Inkastoo haddana ninkan gurigiisa aysan aqoonin, waxay xilligaas geysay guri ayada ay lahayd. Sababtay u geysana waxay ahayd maadaama ninkan aysan aqoonin gurigeeda ayayna keentay. Kadibna habeenkeeda halkaas ayay seexdeen, taasoo la filayo inay halkaas ay wax ka dhaceen. Si kastaba ha ahaatee, subaxiga markii la gaaraba, ninkan hurdadii ha ka soo tooso, laakiinse markuu sidaas soo toosay, indhaha soo kala qaaday, waxa uu kusoo toosay guri aan gurigiisa ahayn, qol aan qolkiisa ahayn, wuuna aamini waayey. Kadibna moobilkiisa ayuu isla markii daf soo yidhi, wuxuuna eegay moobilkii, wuxuuna xilligaas arkay 20 miskool oo ka timid dhankaasi Amanda, xaaskiisa. Wuxuuna xilligaas yidhi, oo kaalay, sidee ayaan halkaani ku imid? Xilligaas ayayna gabadha Aluwa hadashay, waxayna ku tiri, adiga xalay cabitaan badan ayaad ka dharagtay, anigana gurigaada ma aanan aqoonin. Kadibna waxaan bilaabay inaan halkaani ku keeno. Xilligaas ayuu ninkii aad u baqay, wuxuuna xilligaas ku yidhi, aan ku weydiiye, xalay wax khaldan maa dhacay? Iyadiina xilligaas waxay tiri, maadaama xalay aad cabitaan badan ka dharagtay, wax walba waad qastay. Goortaas intaasi maqla aad buu u naxay, aad buuna u murugooday. Wuxuuna ku yidhi, walaalay, wixii dhaca waa ay dhaceen kowdhe, arrinkuna halkan ayuu ku dhammaaday. Wuxuuna ku yidhi, anigu waan ku salaamayaa. Meesha ayuuna xilligaas uga soo tegay, weliba isagoo xilligaas gabadha adreeskiisa u reebay. Kadibna waa uu soo dhaqaajiyey, guriga ayuuna isla markii yimid. Xaaskiisa Amanda oo halkaasi weliba cadhaysan ayuuna guriga u soo galay, weliba iyadoo halkaasi ku sugaysa, indhaheedana laga dareemi karo siday u soo fiirinayaan aawadiis, laga yaabo inay xitaa midi isku beddelaanba. Kadib ayayna ku tiri, aan ku weydiiyey, xalay hagee aaday? Ii sheeg. Xilligaas ayuuna bilaabay in uu sheego, wuxuuna ku yidhi, xafiiska ayaan seexday, maadaama cunugii aniga aan ku riyoonayay aan waayey, waxaan seexday xafiiska, waxaana doonayay dhibka inaan iska yareeyo. Xilligaas waxay ku tiri, ma run ii sheegaysaa mise been ayay kaa tahay? Ii sheeg, ama arrimo kale aaday? Xilligaas ayuuna ku yidhi, war waxaas ma jiraan, gacanlisa isdeji. Si kastaba ha ahaatee, Amanda arrinkaas maskaxdeeda inkastoo haddana gelin, waxay xilligaas istiri, maya, ninkan horta waa qasab, maadaama halkan uu ilmo ka waayay inuu naag kale gacanteeda la aado, laakiin waa inaan sidan ka fekeraa sidaan arrinkaani ku xalli lahay. Maskaxdeeda idilna waxay bilowday inay aad uga shaqaysiiso, inoo soo celi. Kan kale ninkii John ahay, isaga noloshiisa hadda si caadi isaga soo laabatay, inkastoo haddana xaqiiqsanaa waxaynay dhaceen. Waxaan ka hadlayaa gabadhii oo habeenkii la soo kulmay, haddana wuxuu yidhi, waxaas wax weyn maahan ka gudub. Inkastoo haddana ogaay qalad inuu galay, haddana taas uma qaban, dhanka wanaagsan ayuuna ka fiiriyey. Had jeerna ninkani wuxuu mar uun rajeynayay gurigiisa inay ilmo ku soo biraan, waqtina la qaataan, lana qoslo, farxaddana halkaasi laga dareemo. Tan kale oo wanaag oo ninkaasi ma jira waxay ahaydba in sanadkii marba uu booqan jiray meelaha lagu koriyo carruurta agoonta,
halkaas ayuuna waxa uu gey jiray cunto fara badan. Ilmuhuna aad bay ugu xiisi jireen imaanshihiisa, isagoo halkaasi keenaya bariis, cambuulo, caano, dhar iyo weliba sidaas oo kale waxyaabo kale oo isugu jira. Carruurtuna had jeer way isugu soo imaan jireen, aad bayna ugu farxi jireen. Maamulaha iskuulkaasna ayaa had jeerna u mahadcelin jiray. Sidaas oo kale carruurtu waxayba ka dhigi jireen aabbo maadaama ninkani si wanaagsan oo ula dhaqmayo, cunto meeshana uu keenayo weliba wax walba ay rabaan. Sidaas oo kale maalin waxaa dhacday sida caadadiisa markii uu keenaba in xitaa mid ka mid ah gabdhihii yararka ee halkaasi joogay ay bilaabeen inay ninkani u duceeyaan, iyagoo xilligaas ugu duceynayay inuu helo waxa uu rajaynayo, taasoo ah inuu isaga ilmo helo. Si kastaba ha ahaatee, ducadii markay soo dhammaatay isagana bixintiisii, ninkani wuu iska soo tegay, isagoo xilligaas u ballan qaaday mar kale inuu u soo laaban doono, halkaana uu keeni doono wax fara badan iyo weliba cuntooyin si uu carruurtan ugu deeqo. Si kastaba ha ahaatee, maalinkaas markuu ka soo dhaqaaqay, wuxuu iska soo maray dhankaasi suuqa, laakiin xilligaasi waxaa ishiisu qabatay gabar, weliba gabadhaasi waxaa ka muuqday duruufa, weliba waxay ahayd gabar toogsanaysay. Kadib ayuu xilligaas bilaabay gabadhii inuu u soo dhowaado, isagoo xilligaas xoogaa yar lacaga jeebkiisa ka soo bixiyey. Kadibna gabadhii ayuu xilligaas bilaabay inuu siiyo. Gabadhiina xilligaas aad bay ugu faraxday, wayna u mahadcelisay sida waxaana uu ninkan u caawiyey, iyadoo xilligaas ku tiri Ilaah ha ku barakeeyo. Wuxuuna sidaas oo kale ay ku tiri wax walbaad doonaysidna Ilaah ha ku siiyo, iyadoo xilligaas sidaas ninkii ugu duceysay maadaama xilligii garabka ay u baahneed iyadoo uu caawiyey. Ninkiina aad buu u farxay, isagoo xilligaas farxaddiisa aan la qiyaasi karin ayuuna meeshii isaga soo tegay. Mar uuna wuxuu ku riyoonayay inuu isaga aabbo u noqdo. Si kastaba ha ahaatee, maalmuhu waa ay socdeen, iyadoo isbuucyadu bilaha ay isku dhibayaan. Laakiinse maalin waxaa dhacday arrin cajiib ah. John sida caadadiisa ah shaqada ayuu isaga soo laabtay, laakiin goortuu sidaas xafiiska u soo galaba moobilkiisa ayaa la soo wacay. Nambarkii markuu fiiriyena wuu aqoonsan waayey, wuxuuna is yidhi war nambarkan yaa waaye. Markuu sidaas u qabtana qof dumar ayaa xilligaas la hadashay. Kadibna waxa ay ku tiri low, markaasuu ku yidhi yaa waa qofkii la hadlaya. Waxayna ku tiri waa allow, ima xasuustid miya? Markaas ayuu wuxuu bilaabay inuu dib u xasuusto maskaxdiisa. Waxayna ku tiri ima xasuustid miya gabadhii baarka kula kulmi jirtay, weliba habeenkii aad la seexatay? Kadib ayuu soo xasuustay, wuxuuna ku yidhi haa waan ku gartay, maxaa rabtaa? Xilligaas ayayna ku tiri waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego. Arrinkaasna wax kale ma ahane ee aniga uur ayaan ku leeyahay. Micnaha habeenkii markaan sa seexanaba sidaas ayaanba uur ku qaaday. Goortuus intaasi maqla wuu aamini waayey, wuxuuna ku yidhi macquul maahan. Xilligaas ayayna ku tiri war aniga run ayaan ka hadlayaa, ee hadda ilmahan ma iska soo ridaa mise ilmahaada waad u baahan tahay? Goortuus intaasi maqlaya wuxuu yidhi maya isdeji, waxaan kaa rabaa inaad ii soo dirtid adreskaaga, aniga ayaa ku imaanaya markaan shaqadan ka soo baxee. Iyadiina isla markii way aqbashay. Kadibna adreskeeda ayay xilliga u dirtay. Maray xilliga galabnimadii tahay ninkii baabuurkiisa soo kaxaysto. Kadibna gabadhii ayuu la kulmay, xilligaas ayuuna ku yidhi walaalay runta ii sheeg, waxaan kaa rabaa inaad ii xaqiijisid in aniga ilmahani leeyahay. Iyadana waxay ku tiri war ilmahan adiga ayaa iska leh, anigana wax nina sitaa sanadaas laba aana kulmin, marka ilmahan adiga ayaa iska leh. Haddaan nale haddana waa ii sheegi kartaa, aniga dhimal ilmahan waa iska soo ridayaa, sababtoo ma doonayo arrinkan waalidiinteeda inay ogaadaan. Goortaas intaasi ay tiriba gabadhii ayuu wuxuu ku yidhi maya sidaan ha samayn, anigu waxaan doonayaa inaan aabba noqdo, ilmahana waan rabaa, marka waan ku baryayaa sidaas ha samayn. Markaas ayay ku tiri okay hadday sidaas tahay waa inaad xalaba samaysaa. Isagiina wuxuu ku yidhi maxaa waaye? Alow ayaana ku tiri war waalidiinteenna saxa uu caado dhaqameed ayay leeyihiin inaa qoyskan ka soo jeeda, taasoo ah in gabadha aysan wax uura qaadi karin ayadoona micnaha la guursan. Marka taas saameyn ayay nagu yeelanaysaa, marka waa inaad i guursataa. Marka intaas afkeeda ka soo baxda ninkii dib ayuu u degay, wuxuuna ku yidhi laakiin waxaas ayaan qabaa, marka sida ayaan kuu guursadaa. Xilligaas ayay ku tiri saaxiibow adiga ayay ku taallaa, sida kuwaan sameey, arrinkanna ka soo feker. Isagana wuu iska soo tegay. Kadibna xaafaddiisa ayuu yimid. Habeenkii idilna wuxuu bilaabay in arrinka uu ka fekero. Tan kaloo dheeraadna xilligaas waa uu jecel yahay xaaskiisa Amanda, wuxuuna ka cabsanayaa inay arrinkaani ogaato. Ugu dambeyntiisa ninkan go'aan ayuu qaatay. Subaxigana wuxuu u tegay gabadhii, wuxuuna ku yidhi walaalay waa isguursanaynaa, laakiin arrinkan waxaan rabaa secret inuu noo ahaado. Iyadiina way aqbashay. Kadibna maxkamad ayay tageen, sidaa darteedna labadooda sidaas ayaa lagu soo meeriyey. Sidaasoo kale looma dhigin aroos aad u weyn, sababtoo ninkan ma uusan doonayn in arrinka xaaskiisa ku baraarugto. Kadibna wuxuu bilaabay inta iyada ay ka dhalayso guri inuu dejiyo. Gurigaas ayuuna shaqaalayaal ugu howlgeliyey, micnaha iyada u shaqeeya, daryeela,
wax walbay u baahan tahana iyada halkaasi lagu siiyo. Si kastaba ha ahaatee ninkii si fiican ayuu gabadhii u daryeelay, xaaskiisana waa uu ka qari jiray ilaa biluhu ay gurmeen. Ugu dambayntiina 9kii bilood ayaa u buuxsamay. Kadibna waxaa loo sheegay gabadhii inay foolanayso. Xilli galab ayaana ninkii mobilkii laga soo wacay, loona sheegay gabadhii inay isbitaalka taallo weliba ay foolanayso. Isagana isla markii waa uu soo cararay isbitaalkii oo yimid. Xilligaas ayuuna bilaabay inuu bannaanka ugu sugo inta xaaskiisa ay isbitaalka ka soo baxayso. Si kastaba ha ahaatee waqtigu waa uu gurmay, ilaa ugu dambayntii gabadhii dhalinaysay bannaanka ku soo baxday, iyadoo xilligaas dhoolla caddeynaysay. John oo ku soo orday kalkaalisada ayaana xilligaas ku yidhi, bal war farxad leh ii sheeg. Iyaduna waxay ku tiri, saaxiib congratulation. Markuu intaasi maqlo waa uu farxay, waxayna u raacisay kalkaalisadii, xaaskaadii waa ay dhashay. Weliba arrinka farxadda leh aan kuu sheega waxay tahay in xaaskaadu 3 ilmo ay dhashay. Micnaha mataano waaba dhaafeenba. 3 maroosa, 2 wiil iyo weliba 1 gabar. Goortuu intaasi maqla aad buu u farxay, weliba wuu aamini waayey. Ilintuna waa ay ka soo daadatay, isagoo isla markiiba qolkii gudaha u galay. Kadibna ilmihiisa yarka halkaasi ku arka aad buuna u farxay, ilaa ilintiisu xitaa jirkiisa dhan wada gaartay. Laakiin xilligaasi ninkii dib ayuu isugu laabtay, wuxuuna is yiri, harmaysa ilmahaadii ahayn. Kadibna DNA ayuu isla markiiba codsaday, ilmihii ayaana laga qaaday. Ugu dambayntiina dhakhaatiirtii oo ku soo celiyay ayaa waxay ku dhaheen, saaxiib ilmahan adiga ayaa iska leh. Goortuu John intaasi maqlay, farxaddii ayaa mar kale ku sii siyaaday, isagoo xilligaas yiri, ilaahow aday mahad oo idil kuu sugnaatay. Kadibna aad buu u dabaaldegay, qosolna waa uu ku daray, mana uusan aqoonin xilligaasi meeluu isaga u aado, sababtoo farxaddiisa lama qiyaasi karinba. Wax uu sannado badan sugayay, dhibaatooyin fara badan u soo maray, ayuu ugu dambayntii uu ku guulaystay. Sida uu doonaba ha ku dhale. Si kastaba ha ahaatee, waqtigu waa uu gurmay, maalmo ayaana ka soo wareegatay arrinkaasi. Kadibna habeen ayuu Ricky wuxuu u yimid xaaskiisa Amanda, wuxuuna ku yidhi, Amanda soo dhawow. Weliba xilligaas qolka fadhiga ayay fadhisay. Markaasi ninkii eegtay waxay is tiri, war ninkan bele wuxuu soo wada khayr maahna maxay noqon doonaan. Kadibna waxa uu ku yidhi xilligaasi, walaalay dhegayso xaqiiqada aan kuu dhoobo. Arrin waxaa jira aniga aan kaa qarinayay. Arrinkaasna wax kale maahan, aniga gabar kale ayaan macnaha isboobsiinay. Waa xasuustaa u malaynaya habeenkii gurigaan ka tegayay. Arrimahaas sidaan ku sheegay macnaha meeshii aan seexday waxaas been ayay ahaayeen. Habeenkaas anoo cabsan ayaan gabar la kulmay. Kadibna kulankii ayaaba gabadhii uur igu qaaday. Anigana gabadhii waan guursaday. Marka hadda waxaan intaasi kugu sheegaya wax kale maahane, waxaan doonayaa in gabadha gurigaan soo dejiyo, maadaama gurigaan uu yahay guri aad u weyn. Marka arrinkaas ayaan doonayaa inaan kula socodsiiyo. Maanta marka intaasi maqashay, waxayba la noqotay in wax weyn wadnaha looga dhuftay. Waxayna tiri, ma halkii qalad ayay uur ku qaaday. Weliba isagoo xilligaa u sii raaciyay, ilmaha ay dhashana waa 3 la soco, micnaha 2 wiil iyo 1 gabar. Xilliga intaasi maqashay Amanda, mar kale ayaa waxayba la noqotay guriga inuu ku sii dumay. Xilligaasna Amanda waa ay ka dhaadhici weysay. Xilligaas ayuu ninkii John ugu daray, ilmahaas waa ilmahaagiyoo kale, marka waxaan doonayaa guriga inaan keeno. Xilligaas Amanda meeshii ay fadhiisay waa ay ka istaagtay, waxayna ku tiri, maxaad sheegaysaa? Maya anigu taas ma aqbalayo. Hadda ma waxaa bilowday guriga inaa ilmahaasi keentid, ma kaa yeelayo. Kadibna meeshii buuq ayaa ka dhacay. Inkastoo John xilligaa isku dayay inuu la hadlo dejiye Amanda, haddana waa uu ku guuldaraystay. Kadibna meeshii ayuu xilligaas uga dhaqaaqay, wuxuuna ogaaday in arrinkan xilligan uusan ku habboonayn. Amanda goortiisa meeshii looga tegay ayay bilowday inay aad uga fakarto, waxayna xilligaasi tiri, wow, hadda ayay soo baxeen wixii aniga aan ka dagaalamayay. Haddana waxaaba dhacdaba ninkan inuu hadda ilmahaas meeshaan i keeno, taasoo ay ka dhigan tahay haddii ilmahan halkan uu kaniyo weliba xaaskaasi in ayda halkan lagala wareegi doono, meeshaan laga saari doono. Habeenkii idilna maba seexanba, fikir ayaa dilay. Maskaxdeeda ayayna isku dayday inay wax walba ay ku xalliso arrinkani, ilaa ugu dambayntii gabadhii qorshe uu ku soo dhacay. Qorshahaasay tiri, haddaad samaysid ninkani waad ka guulaysanaysaa. Waxayna bilowday subax markuuba ninkii shaqadiisa iska aadaba inay iyadu isdiyaariso. Isdiyaarintaasna qorshe weyn ayaa ku duugane. Gabadhii ha baxda, kadibna nin dhakhtar ayay u tagtay, howl ayay ka soo dhammaysatay. Xilli galabnimadii ay ku beegan tahana, gabadhii waa ay soo baxday, waxayna toos u aaday qolkii ninkeeda uu joogay. Inaha ninkeeda xafiiska uu ka shaqeeyo. Laakiinse goortay soo gashaba, waxay aragtay ninkeeda inuusan joogin. Laakiin xilligaasi gabadhii secretary-ga ama xogayaha, taasoo lagu magacaabayay Laura, iyo nin kale meesha ay ku shukaansanayaan. Goortay macnaha labadu isku shukaansanayaan ka wadaahe. Markay intaas arkeen gabadhin meesha soo gashay, ayay isla markii kala boodeen. Xilligaasi Janice ayay meeshii ka heshay gabadhii Amanda, waxayna tiri, wow, haye xog haysaan maxaa waaye? Boqolkii maamulahada ayaa waxaana ka dhex wadiinba, taasi maaha wax loo dul qaadan karo.
Laura oo aad uga naxday ogeydna in Amanda aysan sahlanayn ayaa bilowday inay bariso. Amandana Janiska waa ay ka faa'iidaystay waxayna ku tiri okay waan ku cafinayaa. Wax walbana waxaan ka soo qaadayaa inaan arkin hal shay waa inaad ii samaysaa. Xilligaasi Laura oo baryaysa ayaana ku tiri okay maxaa waaye. Kadibna Amanda isma dhimin boorsadeeda iyo wixii ka soo bixisay dhala yariisa. Dhaladaasna waxa ayaa ku jira gadaal ayaa ka ogaa doontiin ayay gabadhii Laura u dhiibtay waxayna ku tiri Laura bahashan waa qabsanaysaa kowdhe waxaana kaa rabaa subax alla keena ninkayga markuu kafeeya wax kuu tirsado waa inaad wax yar dhas ugu toosaysaa weliba aad ugu soo qastaa mana doonayo inuu arrinkani kaa dareemo. Laura markii hore waa ay diiday waxayna tiri maya macquul ma ahan laakiin waxa la yidhi wax walba waan sheegayaa la soco maanta ayaana shaqada kuugu dambaysana berri kusoo laamadaysid waa haddii aniga amarkayga aad diidid. Laura xilligaas shaqadan waa ay rabtay oo waalidiinteeda ayay wax u bixinaysaa oo macnaha waalidiinteeda ayaa ku tirsanaaye waxa ay tiri okay dhimale wax walbaad u baahan tahana waan kuu samaynayaa. Xilligaas ayayna Amanda farti ka saartay kadibna meesha ay maanta xilligaasi ka soo dhaqaaqday iyadoo xilligaas dareemaysa farxad tirina hadda ayaan wadadii cagta macnaha guusha ayaan hadda saaray hadda ayaana ninkani ka takhalusayaa. Si kastaba haatee aan usoo laabana gabadhii yareed ee Laura kadib meeshii ayay bilowday inay isaga fakarta weliba iyadoo xilligaasi haysaa dhaladii yar tahay kadibna waxay is tiri war dhaladan maxaa ku jira. Sidaasoo kale way ogeed haddii maantana ay kasoo horjeesato in gabadhan shaqadii ay ku weynayso ammaantana ma aysan ahayn gabar sahlan keliya waxaa ka badan ninkeeda inay ku dirto sidaasan shaqadii looga ceeriyo. Kadibna Amanda maadaama xilli galabayd way iska soo tagtay xaafadeeda ayayna iska soo aaday laakiin habeenkoodil aad bay u fakaraysay waxayna isweydiinaysay maxaa dhici doonaa haddii shaaha lagu daro waxaan meesha ku jira. Si kastaba haatee subaxii markii la gaarana shaqadii ayay dib isaga soo laabatay inkastoo xalay aad u fakaraysa haddana gabadhani sidaas darteed ba xala si fiican uma aysan seexan haddana shaqada waxay maanta u soo aadaba sumcadeeda iyo weliba iyadoo shaqadeeda ilaalsanaysa. si kastaba haatee shaqada subax hore si fiican ayay ku socotay maray abaare 3 subaxnimo ay ku beegan tahana ninkan ayaaba shaqadiisa yimid oo waxaan ka hadlayaa ninkii John ahay. Kadibna xafiiskiisa ayuu iska yimid sida caadadiisa ana wuxuu bilaabay gabadhii xogayaha inuu yeero iyadan isla markii way soo gashay oo ku tiraysay wax wanaagsan mudane maxaan ka caawiyaa. Isagana xilligaas wuxuu ku yiri wixii dokumentiyaal ikan waxaan doonaa inaan xalliye. Kadibna waxay ku tiri ka waran kafeygina isagana wuxuu ku yiri war aad baa difaantay la soo gaar iyadana jikadii ha gasho kadibna kafeyga ha u soo diyaariso. Xilligaas ay diyaarinaysa ayayna la diyaartaa soo bixisay budo yar oo ku jirta ayayna ka soo shubtay kadibna shaah ayay ku dhex dartay waa ayna ku qastay markay sidaas u diyaarisay ayay isla markiiba waxay dib ugu soo celisay ninkii John ahay. John markii aad meeshii loo soo dhigay aad buu ugu farxay wuuna u mahadceliyey wuxuuna ku yiri aad baad u mahadsan tahay. iyadana wuxuu ku yiri bax waxaan kaa rabaa dokumentiyadii iyaalna ii keentid waxaan doonayaa inaan indheeye. iyadana isla markii meeshii firdiga ayay ku tiri goortaysa bannaan ku soo baxda gabadhii Amanda ayay wacday una sheegtay inay shaahi wixii ugu dartay. Amanda ayaana xilligaas ku tiri wow shaqo fiican ayaa qabatay xasuusnow inaad wax walba u qabato sidii aan ku dhahay haddii kale wax walba way isbedeli doonaan. inoo soo celi dhan kale ninkii John ahay kafeygii markii sidaas looga soo dhigaba Joro kama degdegina mobilkiisa ayuu fiirinayay kadibna kafeyga ayuu saas usoo qaatay isagoo afka la sii aadayana mobilkiisa ayaa soo dhacay. mobilkiisa qabta waxaan lagu yidhi si degdeg waa inaa u imaataa. isagana xilligaasi kafeygiisa ayuu hore isaga soo qaatay qaybta hoose ayuuna u soo degay ilaa ugu dambeyntii baabuurkiisa uu soo gaaray intuusa xilligii baabuurkii furinba gabar xilligaasi kuwan meelaha jijibta ee darbi jiifyaasha ayaa ku soo orday kadibna kafeyga ayay xilligaas daf ku tiri goortay sidaas uga daftana waa ay kala orday isagana waa uu yaabay. kadibna gabadhii waxay bilowday kafeyga inay xilligaasi daadiso isagoo xilligaas aad u caraysan ayuuna gabadhii ugu yimid waxa uuna ku yiri maxaa sidaan aad u samaysay maxaadna kafeyga iga daadisay ta kale haddii aad baahan tahay maxaad ii weydiisay weyse cunto aniga ayaa ku sii lahaye. gabadhii oo xilligaa u soo dhawaatay ayaana waxay ku tiri warshahan haddii aad la qaleed maanta waaba dhimo laheedba sababta uu qorshahan waa qorshe hore lagugu degay marka aniga suntaas ayaan ka badbaadiyey. xilligaas ayuuna John yaab wuxuuna ku yiri laakiin sidee ayaa ku ogaatay. iyada ayaana waxay ku tiri xilligaa iskadaasaan ku ogaaday lana saxo qof adiga kuu dhawaaya waxa uu doonaya inuu kaa takhaluso marka naftaada waa inaa ilaalisaa. xilligaas waa uu yaaba ninkaana wuu aamini waayey wuxuuna yidhi sidee gabadhani ku ogaatay in shaahan sun loogu daray waxaa laga yaabaa baahidiina u geysay laakiin isla markaasi xasuus ayuu galay wuxuuna isweydiiyey sidee macquul ku tahay arrinkani sababtuu u ogay shaahan qofkuu soo diyaariyey subaxani waxa ay ahayd gabadhii Laura. kala saaka markuu wejigeeda Laura arkayo wuxuu ogay wejigeeda inuusan faahfaah ahayn macnaha inay wax ka qaldanaayeen laakiin sidee ayay isugu dayday aniga shaaha sun inay iigu darto
waxa uuna yidhi maya macquul maahan. Tan kaloo taaganba xilligaas maskaxdiisa kusoo laabanaysa ayaa ahaydba in Laura maalmo ka hor isaga mushaharka uu kordhiyey maadaama iyada dhibaatooyin ay dhankaasi xaafadda ay ka haysteen hooyadna isbitaal la geeyey isagana arrinkaas wuu ka saaciday. Marka macquul maaha inay iyadoo saas dhan lasxaankaas loogu sameeyey in maanta ay sun shaah igu darto. Laakiin soo jeesta uusan u soo jeestaba ayuu bilaabay gabadhii inuu mar kale la hadlo. Nasiib darrose gabadhii meeshii ma joogto waana aamini waay wuxuuna ku yidhi aaway dadkii faraha badnaa ayaa xilligaas yidhi waa ay tagtay. Isagana xilligaa isma uusan dhimine koobkii yarka ah koobkii meesha uu ku daatay wixii yarka ee ku haray ayuu isla markiiba soo qaaday. Kadibna dhankaasii baabuurka ayuu u soo qaatay sababtoo waxa uu doonayey koobka inuu baaritaan ku soo sameeyo in arrinkani sax iyo in kale. Kadibna waa uu dhaqaaqay wuxuuna aaday halkaas iyo meeshii dhismaha uu ka socday micnaha waddadii dhismaha ee kambanigiisa u qaatay. Dhan kale Laura xilligaas qaybta sare ayay saarneed waxayna aragtay qaybtii hoose ay dadkii isugu soo shumeen. Xilligaas iyana waxa ay tiri alla waxaan u malaynayaa in arrinkan booskay uu ku baraarugay. Laakiin markay aragtay ninkaas markuu sidaas u sii baxaba aad bay u farxday waxayna istiri war ninka arrinkii ma uusan ogaan. Laakiin xilligaas Laura laftarkeeda ma aysan aqoonin shaaha waxa iyada ay ku darto sun inay yihiin iyo in kale. Aan dib ugu soo laabano John intuu waddada sii socday wuxuu aad uga fekerayay waxa meesha ay ka qaldan yihiin isagoo xilligaas su'aalo badan isweydiinayay dhahayana dhibka xagga ku jira yaana sabab u ah maanta in aniga la sameeyo. Si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii waxa uu soo gaaray meesha uu dhismaha ka socday halkaas ayuuna wuxuu kala kulmay injineerkii isagoo xilligaas indheeyey iyo weliba sida ay shaqada u socoto. Injineerkii ayaana xilligaa u sheegay in arrimo badan ay haystaan loona baahan yahay in si degdeg loo xalliyo. John xilligaasi maskaxdiisa dhamma ma aysan joogin oo arrinkii sunta ayuu ka fekerayaa. Xilligaas iyo waxa uuna ku yidhi ninka injineerka ahay wax walba isticmaal oo arrinkan iga xalli wixii qarashna aniga i weydii. Xilligaas ayuuna injineerkii ku yidhi aad baad u mahadsan tahay maamule wax walbana aniga ayaa xalinaya keliya waxaan rabay in aniga arrinkan aan ku ogeysiiyo haddii ay sidaas tahana aniga aad ii daysay aniga ayaa xalinaya. John ayaana xilligaas bilaabay inuu si fiican u indheeyo wuxuuna arkay shaqada inay si fiican u socoto. Injineerka ayuuna wuxuu ku yidhi xilligaasi aniga waxaan doonayaa inaan arrimo soo xalliyo dib ayaana kugu soo laabanayaa waddadan dhismaheeda waa inaad iga fududaysaa weliba ma doonayo inay dib igu soo laabato. Injineerkiina wuu aqbalay. Kadibna xilligaas John baabuurkiisa ayuu isaga soo laabtay isagoo xilligaas toos u aaday nin dhakhtar oo ay saaxiibo ahaayeen kaasoo lagu magacaabi jiray Kenny ayuuna toos u aaday meesha uu ka shaqaynayay. Goorta uu soo gaaray ayuuna halkaas waxa uu kala kulmay Kenny wuxuuna ku yidhi Kenny saaxiibo dhib weyn ayaa jira waxaana doonaya inaad arrinkan iga xalliso. Koobkan wax yariiska oo ku jira waxaan rabaa baaritaan inaad ku samaysid waxaana doonaya inaad bal ii ogaatid in kofeygan waxa la iigu soo daray iyo in kale. Xilligaas ayuuna Kenny yaabay isagana isla markii ma uusan isdhibina koobka ayuu ka qaaday kadibna wuxuu la aaday dhankaasi qaybtii laabka si uu baaritaan ugu soo sameeyo. Dhan kale John bannaanka ayuu ku sugayay isagoo xilligaasi aad uga walwalsanaa arrinkani iyo weliba inuu arrinkan xaqiiq noqon doono. 30 daqiiqo ayay ku qaadatay ilaa ugu dambeyntii ninkii Kenny laabka uu ka soo baxay kadibna John u yimid. Xilligaas ayuuna John waxa uu yidhi war ii sheeg saaxiibow meeshan wax maa ku jira. Inkastoo xilligaas John xitaa wejiga Kenny uu ka qarsan karay siduu wejigiisa isku beddelay. Kadibna xilligaas waxaa soo istaagay ninkii Kenny wuxuuna ku yidhi saaxiibow kafeega markii aan baaritaan ku sameeyey waxaan ogaaday in sun yar lagugu daray suntaasna ta kale aan kugu daro maahan mid dadka hore ka disha ee waa sin loogu talagalay macnaha inay tartiib tartiib jirkaad u gasho ilaa ugu dambeyntiina muddo 2 asbuuc kadib aad sidaas ugu geeriyootid. Ugu dambeyn adiga 2 asbuuc ilaa 3 asbuuc ayay suntaana ku dili kartaa weliba tan kale waxaa lagugu daray shaaha iyo meelahaas oo kale marka suntaana waa sun khatar ah. Xilligaas John waa uu yaabay laakiin Kenny ayaa ku celiyay wuxuu ku yidhi saaxiibow si arrinkani ku dhacay ii sheeg yana shaahan kugu daray. Xilligaas ayuuna John wuxuu ku yidhi war shaahan macnaha kofeegan shaah iyo kofee isku qaldan maanta dhan kofeegan waxa ii keentay gabadhii xogaya iyo ahayd Lori marka ma laga yaabaa inay ayada arrinkani ka dambayso. Wuxuuna sidaas u raaciyay saaka subaxii horeba in wejigeeda uu ka shakiyay weliba isbeddel ka dhacay. Xilligaas ayuuna Kenny wuxuu ku yidhi arrinkaasi hadday tahay waa arrin weyn booliiska waa in lala wadaagaa. Laakiin John ayaa wuxuu ku yidhi maya isdeji aniga ayaa arrinkan xalinaya. Lori lagama yaabo inay disho laakiin qof kale waxaa jira ka dambeeya aniga ayaa arrinkani soo xalinaya ee aniga igu daa. Isla markiina xilligaas wuu iska soo tegay intuu waddada ku soo jira ayuuna bilaabay inuu aad uga fekero. Marka hore wuxuu rabay inuu aado dhankaasi xafiiska laakiin qorshihii waa uu beddelay wuxuuna soo aaday dhankaasi gabadhii ilmaha u dhashay inaa waa taqaaniina u malaynaa waa Laura maya waxaa waa Aluwa Laura waxay ahayd gabadha secretary-ga ahayd
xaafadeeda ayuu toos u soo aaday sababta wuxuu doonayay inuu arrinkani la wadaago. Ugu dambayntiina gurigeeda ayuu hor yimid, baabuurka ayuuna baakimsa gashtay. Ugu dambayntiina gurigeeda ayuu toos u soo galay. Xilligaas Aluwa ninkan ma aysan fila jirin sababta waaba xilli hore. Kadibna halkaas ayay ku soo dhaweysay, weliba ayadoo habsiisay, waxayna xilligaas bilowday inay si wacan guriga ugu soo dhaweydo. Waxayna ku tiri, xaaji maanta maxaa qaldan? Wejigeeda cabsi ayaan ka dareemayaa, ma wax dhib ayaa jira? Xilligaas ayuu ku yidhi, iga daa waxaas, carruurtii iguna see yihiin. Iyadana xilligaas waxay u sheegtay in hadda carruurtii ay jiifteen, inaha ay hurdo raaxa leh isaga jiraan, hadhow camalna ay soo kacayaan. Xilligaas ayuuna waxa uu ku yidhi, kaale waxaan doonayaa arine. Kadibna waxay bilaabeen inay fadhiistaan. Xilligaas ayuuna bilaabay arrinkooda idilna u sheekeeyo. Wuxuuna ku yidhi, walaalay, arrin weyn ayaa jira. Arrinkuna wax kale ma ahan hadda isbitaal ayaan ka imid, weliba nin aan saaxiibana oo Dr. Kenny la dhaho ayaan shaah u geeyey. Xilligaas ayuuna ii sheegay in shaah aniga sun laygu daray. Marka qof anigii dhawayaa waxa uu doonayaa in iga takhaluso. Ka warran arrinkaasi. Hadhow marka intaasi maqasho way aamini weyse, waxayna ku tiri, laakiin sidee? Macquul maahan. Ma hadda ayaa waxa ay leedahay oo hadda ilmo dhalay, ilmahayga ayay doonayaan inay noqdaan. Maya macquul maahan. Laakiin yaa arrinkaasi sameeyey. Xilligaas ayuuna John waxa uu ku yidhi, aniga xitaa waan la yaabanahay, laakiin gabadha sekretarigii ahayd ayaa saakay koofeegan isoo siisay, mana aqaana sababta ay doonaysa inay arrinkan u samayso. Xilligaas ayayna Aluwa waxay ku tiri, laga yaabaa Amanda inay arrinkan lug ku leedahay. Xilligaas ayuuna ku yidhi, aniga hadda eedda ayada dusha kama saari karo, laakiin anigu waxaan doonayaa arrinkan xaqiiqdiisa inaan bannaanka keeno. Tan kale waa inaan aniga hadda sameeya qorshe cusub si aan arrinkan uga hortago. Aluwa ayaan xilligaas ku tiri, ragacal iyo fikir, arrinkan alla yaraysan kara maahan. Ilmahaygana ma doonayo hadda agoon inay noqdaan, weliba nolol raj ay ku noolaadaan. Arrinkan waa inaad xallisaa. Isagana xilligaas waxa uu ku yidhi, anigiida aniga ayaa wax walba bannaanka keenaya, weliba soo saaraya qorshaha. Qorshahaasna wax kale maahan, isaga wuxuu doonaya bal inuu ogaado arrinkan inay Amanda lug ku leedahay iyo in kale. Xilligaas ayuuna saaxiibadiisa ku yidhi, aniga hadda waan sii baxayaa oo waxaan aadayaa dhankaasi xaafadda. Qorshahan watana waxay tahay inaan aniga daciif iska dhigo oo aan layga dareemin. Sababta waxaan doonayaa Amanda inay arrinkan lug ku leedahay iyo in kale inaan soo ogaado, sidoo kalena aan ogaado sababta ay doonaysa inay iga takhalusto. Kadibna baabuurkiisa ayuu isaga soo laabtay, wuxuuna soo aaday dhankaasi xaafaddiisii kale ee Amanda, isagoo xilligaas qorshe weyn wata. Goorta uu saas guriga u yimidba, maanta way aragtay baabuurka ninka meesha soo baakimtay, wayna aamini weysay. Laakiin xilligaas waxay aragtay inuu yara dhacdhacayo, inaha jawigiisa ay saxnayn. Amanda ayaana xilligaas ku soo oroday, waxayna ku tiri, kaaliise camale, xilligan maahan xilliga imaan jirtay, maanta maxaa dhacay? Jawigaadu ma saxna miya? Xilligaas ayuuna ku yidhi, walaalay, aniga xitaa la jirkay ma aqaano, maalmahan xaaladdeedu ashmaba ahaanba, weliba saakay markaan macnaha kofee iyo wax yar cabay ayaan jawiga u bog waayay. Marka maanta waxaan go'aansaday guriga inaan iska imaado oo aan iska seexdo. Xilligaas ayayna bilaabay inay ii dejiso, waxayna ku tiri, gacali bal isdeji bal, waxaa laga yaabaa in madax xanuun yar jire. Kadibna waxay bilowday inay ninkii meesha ay ka kaxayso, kadibna ay geyso dhankaasi qolkii jiifka. Waxayna ku tiri, war bal gacaliye, iska naso oo waqtigaada qaado, caafimaad ayaana kuu rajeynayaa. Xilligaas ayuuna bilaabay ninka inuu iska seexdo, laakiin seexashadaas kama ahayne wuu iska dhedhigaya. Wuxuuna doonayay in gabadhan qorshaheeda uu ogaadiyo, weliba sida ay samaynayso. Si kastaba ha ahaatee, ninkii maalinkeedii gurigaas ayuu joogay. Habeenkii markii la helana waa la kala seexday, oo gabadhii wayba iska jiifatay. Waxaan ka hadlayay Amanda. Ninkiina xilli saqdax ayuuba soo kacaba. Xilligaasna waxa uu bilaabay inuu tartiib sariirtii uga soo kaco, weliba iyadoona xaaskiisa xilligaas aana dareensin. Ka waran ninkan qorshaha uu sameeyey. Qorshe waxa uu sameeyaa innaba caadi yahayn. Wuxuu hore u soo iibsadaba laba shay, macnaha laba device ama laba aalad. Labadaas aalad oo ugu talagalay in guriga meel uga dhajiyo. Labadaas aaladna wax kale ma aysan ahayn, waa kuwa codka duuba. Wuxuuna bal doonayay inuu ogaado gacalisadiisa iyo weliba qorshaha ay wadato. Qolkii fadhiga ayuu hal haba ku dhejiyey, sidaasoo kalena qolkii jiifkana hal haba ayuu ku dhejiyey. Macnaha anytime ay gabadhaani hadasho, hadalkeeda waa uu duubayaa. Subaxii markii la gaaran ay soo toosta, waxay aragtay ninka oo meeshaan warwareegaya. Waxayna ku tiri, see camal saaxiibow. Wuxuuna ku yidhi, walaalay, hadda waan yara fiicnaaday, haddana waxaan doonayaa bal dhankaasi shaqadii inaan iska aado, maadaama maanta oo dhan iska nastay, weliba xalina hurdo fiican aan qaatay. Xilligaas ayuu ku tiri, okay gacaliye, bal is ilaali, naftaadana ka taxadir, sababta ani ma doonayo inay wax iga kaa soo gaaraane. Kadibna wuu iska baxay, shaqadiisa ayuu iska aaday. Goortiisa uu sidaas u baxaba, ayada isla markii mobilkeeda ayay soo qabsatay, weliba iyadoo xilligaas si faraxsan. Kadibna waxa ay la xiriirtay gabadhii Laura, gabadhii xoghayaa u ahayd ninkan John. Kadibna waxay ku tiri, walaalay, aan ku weydiiye,
hasha ninka si fiican ma u siisaa xilligaas ayayna Laura waxay ku tiri marwo wax walbana waxaan u sameeyey sida adiga aad i amartay. Amanda ayaana xilligaas ku tiri shaqo fiican ayaa wadaa, waxaan kaa rabaa hadda xitaa laftarkiisa markuu sidaas u yimaado sida caadiga ahna kafaygiisiisa ugu soo diyaari, bahashaasna ugu dar, tan kalena igu hubi ninka inuu si fiican bahasha u cabo, haddii wax khaldan aad samaysin ogow, wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhiga, micnaha shaqadeeda ayaa ku weynaysaa. Laura ayaana xilligaas ku tiri okay marwo, si kastaba ahaatee gabadhii Laura aad bay u walwalsan weyn isweydiinaysay. wax yar kadibna ninkii ayaaba shaqadii yimid, goortaysa Laura sidaas u aragtay aad bay u naxday, wejigeedana xilligaas cabsida waaba laga dheehan karay, waxayna ninka xilligaas xaqiiqsatay inaysan xaaladiisa wacnayn, micnaha markay wejigiisa ay fiirisay waxayna xilligaas ku tiri mudana subax wanaagsan iyadoo salaamaysa, oo laga dheehan karo inuu xanuunsan yahay ayaa xilligaas ugu jawaab celiyey subax la mid ah, wuxuuna xilligaas ku yidhi walaali ani maanta xaaladdeedu waxaan u malaynaya inaysan fiicnayn, sababtoo madax xanuun ayaan dareemayaa, sidaasoo kalena tabardarri ayaan dareemayaa, mana aqaan dhibku waxa uu yahay. Laura ayaana xilligaas ku tiri mudana aad baan uga xumahay, waxaan rajeynayaa marna fiicnaato, mudane koob kafee oo dhaka jabiya makaa la soo gaaraa, si macnaha energy fiican uga heshid. xilligaas ayuu ninka iyo muuqato kale ayay wadataa mid kale inay igu disho, xilligaas ayuu ku yidhi may hasdhibin, hadda uma malaynaya shaaha inaan rabe, xafiiska ayaan sii gelayaa dokumentiyo wixii i yaala dhan ay keen, sababtaas aan u saxiix ayaan doonayaa. Laura ayaana firdig tiri kadibna waxay bilowday wixii dokumentiyo oo odaygan u yeelay inay isugu soo aruuriso, xilligaasna cabsida iyo weliba waa laga dareemayey. goortiisa ay isku soo aruurisay kadibna xafiiskiisa ugu soo gashay, kadibna waxay u soo saartay feelashii oo idil, waxayna ku tiri mudana waa kuwan wixii oo idil aad iga baahneed. xilligaas ayuuna dareemay ninkani John inaysan xaaladeeda wacnayn, waxa uuna ku yidhi aan ku weydiiye oo wax dhib ayaa jira. xilligaas ayana gabadhii waxay ku tiri maya mudane, wax walba waa ay wacan yihiin. xilligaasna waaba laga xaqiiqsan karay hore inaysan xaaladeeda wacnayn, micnaha wax badan ay hoos ku qarinayso. kadibna isla markii meesha ayay ka tagtay, xilligaas ayuuna John bilaabay maskaxdiisa inuu ka shaqaysiiyo, waxa uuna yidhi tan waxa ay soo wada weyne badana, laakiinse yaa ka dambeeya, ballan kale aan soo laabanno. xilli ay galabnimadii tahay, maanta gurigeeda ayay iska joogta ayaa waxa u timid gabadh ay saaxiibo yihiin, taasoo lagu magacaabo Nikki, magaca hala yaabina waa magacyada Nigerianku ay isticmaalaan. xilligaas ayaana Amanda u timid inaa booqasho lama filaan ah, kadibna aad bay ugu farxday. Nikki ayaana xilligaas ku tiri walaalay ii waran maalmahan kuma arkin, adigani maadna soo booqayn aniga kusoo booqdo maahane. Amanda ayaana xilligaas ku tiri walaalay laftirkayga aad baan kugu xiisay, laakiin walaalay sheekooyin badan ayaa kaa dambeeyey, inaan kaa dabageeyo ayaana rabaa. xilligaas ayayna Nikki ku tiri war fiican baa ii heysaaye iga dabageey walaalay. Amanda oo hadasha ayaana xilligaas ku tiri walaalay aniga oo dhan waa qaadi la'ahay, tan kale adigu waa ogtahay cilada weyn ee haysatee, maalin dhaweyd ninkayga dhakhtar ayaan iskula tagnay, laakiin intuusan dhakhtar ku tegin ayaa ninkii aniga anaa dhakhtarka ayaan laaluushay si aniga arrinkii aan la ogaan, tan kale waa ogtahay markii ilmaha iska soo ridi jiray si xaaladeeda noqotay, kadibna wuunkii sidaas dhan laiga saaray. marka arrinka maanta haysta waxay tahay ilma la'aan, ninkaygana ma aqaano sidaan arrinkan uga sheegi lahay, macnaha uga dhaadhici lahay. xilligaas ayayna saaxiibadeed ku tiri walaalay ma taas dhib leh, xalab ayaa samayn kartaa, wax kalena maahane waxa waaye inaa ilmo meelaha agoonta ka soo qaatay kadibna aad sidaasi u korsatay mataasaa dhib weyna. laakiin xilligaasi Amanda ayaa ku tiri maya saaxiibey, war arrin kale oo weyn ayaan sameeyey, taas anigu waa ila dheer tahay, ninkaygana ma aqbalaya arrinkaase, tan kaleo taaganaya waxayba tahaba ninkayga xabadoo kale inuu helay, ayadana sidaas ilmo ugu dhashay, haddana uu doonayo guriga inuu keeno, anigana ma ahan taas midaan aqbalayo. marka ninka hadda qorshe weyn ayaan u diyaariyey, qorshahaasna wax kale maahane waxaan rabaa in aniga hantidiisa oo idil aan la wareego ka hor taas inuusan guriga ii keenin. xilligaas ayayna ku tiri ninkisi camal walaalay maxaa samaysay, markaasay ku tiri war iska daa ninkii macnaha sun ayaan siiyey oo mar dhow waxaan doonayaa inaan ka takhaluso, arrinkaasna waxaa iga caawinaysaa gabadhay sarxoya u ah, marka ninkan maalmaha soo socdaba isaga ayaa iska tegi doonaa. goortays intaasi maqasho waa ay yaabtay, ninka ayaana tiri war walaalay saaxiib noocan ayaa tahay, Amandana kulaha it wealth is belongs to me, macnaha hantidiisa idilba aniga ayaa iskale, aniga ayaana ku raaxaysanaya. ninka oo naxsan ayaana meeshii ka carartay kuna tiri aniga adiga maanta wixii ka dambeeyay saaxiib ma nihin, kadibna meesha ayay ka carartay. laakiin xilligaasi Amanda waxay tiri wax walba waxaan u samaynayaa inaan hantidaani gacanta ku dhigo, ninkaasna waan ka takhalusayaa. kadibna hantida idil ayada ayaaba sidaas kula wareegaysaa. si kastaba haatee xilli ay maqribadii kusii dhowdahana ninkii John ayaa gurigiisa ka soo laabtay, laakiinse goorta uu sidaas u yimidba wuxuu iska dhigan inay xaaladiisa wacneen, iyadana kulaha wargacaliye
cunto waali ayaa noo diyaariyey ee kaalan kaa soo gaarsiiye isagana xilligaas kulaha maya hadda aniga baahi gooni ma hayso oo adiga hor iska soo hashay wuxuuna u sheegay in wax yar uu iska nasanayo xilligaas ayuu ku tiri okay gacal iyo ii naso isagana xilligaas wuxuu bilaabay qolkii fadhiga inuu iska fadhiisto halka ayada dhankaas iyo jikadii ay iska aaday goortiisa oo hubsada inay baxda ayuuna isla markiiba wuxuu bilaabay aaladii yartaad inuu xilligaasi uu soo qabto kadibna uu bilaabay inuu mobilkiisa ku xiriirsado isagoo bilaabay xilligaas inuu dhagaysto weliba si aan isaga aan laga dareemayn gacaliseenna ma uusan doonin in arrinkeeda ogaato laakiin xilligaas waaga ayaaba ku baryay ninkii markuu wax walba uu maqlay wuxuu xilligaasi xaqiiqsadaba in gabadhan doonaysa maantaba in isaga ay ka takhalusto keliya taasi maahane wuxuu ogaaday xog walba iyo weliba suntii meeshii loo dhex maray weliba loo maray dhankaasi gabadhii xogayaha ahayd wax walbana xilligaasi ay ku sheekaysanayeen niika iyo weliba gabadhanna ay saas baashan u duubtay goorta uu sidaasi maqla waa uu nahay wuxuuna yidhi okay hadda ayaan fahmay dhibaatadoo idilba haysata waa gabadhan sidaasoo kale xogteedii inay id ilmihiis ka soo halkaas ayuuba ku ogaaday xilligaas ayuuna xaqiiqsaday dhibka ugu weyn oo maanta wajahaya inay tahay Amanda micnaha qofka doonaysa inay ka takhalustaba ninkan ay tahaba gabadhan Amanda horta wax cadeymahaasi weli wax ku filan oo helay xogtiisa idil loo qarsaday wax yar kadibna waxaa soo gashay gabadhii Amanda oo xilligaasi dareenta ninkeeda inuu soo wacnayn wuxuuna ku yiri gacaliso xaaladeeda ma wacna koob biyo kala soo gaar iyadana firdiga tiraada galaaskii biyahan ha u keento waa uu nacabay wuxuuna ku yiri markaa xaaladii way kasii daraysaa qolka jiifka ayaana doonaya inaan wax yaraan ku nasto iyadana ninkii waa isoo qabatay kadibna sariirta ayuu saas isugu tuuray waxuuna bilaabay wax yaran uu seexdo Amanda xilligaas wejigeeda waa laga dheehan karay sida u faraxsan tahay inkastoo haddana ay ninka u beerjile u muujinaysay ayuu isla markii waxa uu ku yiri gacalis neefta ayaa ugu dhegdhegaysa ee waan ku baryaa dhakhtarkii waa Amanda ayaa isla markii mobilkeeda qabatay waxayna iska dhigtay qof wacaya dhakhtarkii waxayna ku tiri dhakhtar iga soo gaar ninkayga neefta ayaa ku dhegdhegaysa xaaladiisana ma wacna kadibna waa uu dareemay xilligaas inaysan wacayn laakiin maray 5 daqiiqo ka soo wareegatay Amanda waxay tiri war ninkan ma uu sugi karaba inta uu ka dhimanayo iyadoo xilligaas go'aan ku gaartaba ninkan oo idilna ka takhalusto kadibna barkin ayaa xilligaas soo qabatay ninkii ayayna wejiga ka saartay iyadoo xilligaas tiri halkan ayaa ma kaaga takhalusaya xilligaasi waa uu dareemay John gabadha inay doonaysa inay ka takhalusto qorshaheeda ayuuna usii fuliyo wuxuu iska dhigay in neefta ku dhigtay markii hore inkastoo dagaalamay haddana wuxuu iska dhigay qof dhintay sababtoo ninkani qorshahan waa uu doonayay wax yar kadib markay aragtay Amanda ninkii inuu dhaqdhaqaaqi joojiyay xilligaas waxay tiri wow qorshayga hadda waa ii fulay ninkiina waan ka takhalusay taasoo ay ka dhigan tahay maanta wixii ka dambeeya hantidiisa aniga ayaa iska leh xitaa ninka xilligaasi John neefta ayuu isku celiyey oo ma uusan doonin gabadha inay barkinta ay kusii hayso sababta hadday kusii haysa neefta ayaaba ninkan ku dhegaysa marka dhaqdhaqaaqaydil ayuu joojiyey goortay xaqiisataba ninkan inay macnaha saas uga takhalustaba isla markiiba waa orada waxayna u orday qolka kale iyadoo bilowday dokumentadiisii wixii soo idil inay halkaasi ka aruursato kaliya intaas maana dharkeeda iyo xitaa boorso ku shubatay weliba laabto wixii meeshiil ayay bacda ku aruursatay laakiin arrinka cajiibka ee xilligaasi dhaca waxay ahaydba qolkii waxay usoo laabatay jiifka laakiin goortii sidaas usoo gashaba waxay halkaasi ku aragtay wax lama filaana waxaasna wax kale maahane ee ninkii daqiiqada ka hor ay ka takhallustay oo keliya u dhexaysay intay alaabtii weliba dokumentiyada laabtoobkiisa iska soo aruursanaysay ayay wixiiba halkaasi ka weysay ninkii waxa ayna tirisay camal hee John halkuu ka baxay hadda aniga ayaaba halkani ku dilay tani macquul maahan waxaan u malaynayaa dhib weyn inuu jiro xilligaas ayayna naxda laftirkeeda waxayna tiri anyway ama ha dhinta ama yuusan dhiman anigu waa inaan halkani ka baxsadaa ka hor intuusan arrinkan wax lug aana ku yeelan inkastoo xilligaas ay aad u baqday haddana istiri warbalaayadu dhacdo maxay tahay ninkani qorshe cusub ayuu kuu soo dhigay ayay isla markiiba wixii meesha ka dhex yiilay bilowday inay kala aruursato kadib markii waxeedii la aruursatay ayayna banaanka kusoo baxmaagtay nasiib darase goortay isaas banaanka ugu soo baxda waxay aragtaba waxay halkaasi ku aragtay askar ayada banaanku sugaysa weyna aamini weysay kadibna ninkeeda ayay xilligaas kusoo orday iyadoo wixii ay jidaysa dhulka u dhigtay waxayna ku tiri gacaliya sida moodo xuma jiraan arrinkanna maaha aniga arrin aan ku lug leeyahay askartii ayaana xilligaas ku yidhi isagoo weliba John ba u jawaabin waxaad isku dayda ninka inaad ka takhallustid Amandana xilligaas ooyin beenaya second waxayna ku tiri maya aniga arrinkan gacan kuma lihi ninkanna ma doonin inaan dilo xilligaas ayayna askartii ku dhaheen adeyntu halkan ayay iska taallaa iyagoo xilligaas mimbirii la soo baxay kadibna bilaabay gabadhii inay u shidaan weliba codka ayada laga duubay goortay socodkii sidaas loo shiday loona maqashiiyey iyadoo waaga ayaa ku barya weyna aamini weysay waxayna tiri gacaliye saa moodo wax ma jiraan ee waan ku baryaa nimankan igala hadal John oo xilligaas hadla ayaana ku yidhi waaw filinkaada waan la dhacay
tan kale ammaandaan ku weydiiyey maxay khiyaanada weynaasaan igu samaysay iyo weliba sannadii lasoo dhaafay beentii igu sheegaysay ee la xiriira arrinka ilmaha. tan kale qorshahan mar hore ayaan ku baraarugay, adigana waxaan doonayay in gacanta lagugu dhigo. maanta ayaana ku tiri gacali waan ku barya, aniga aad baan ku jeclahay, mar dambe ku khiyaanay waan ku baryaa, dadkan iga bixi. laakiin xilligaasi isaga ma uusan dhegaysan. askartii ayaana xilligaasi bilaabay gabadhii inay gacanta ku dhigaan, garbadub ayayna xilligaas u xidhin. waxaan la weydiiyey sidaasoo kale qofkii ayada kala shaqeeyey, micnaha dhakhtarkii arrinkani soo siiyey. iyadana xilligaas waa ay sheegtay weliba meesha uu ka shaqeeyo. askartii ayaana isla markiiba dhaqaaqay, kadibna waxay bilaabeen dhakhtarkii arrinkani ka dambeeyey in gacanta lagu soo dhigo. waqti dheerba kuma aysan qaadan, dhakhtarkiina gacanta ayaa lagu soo dhigay, kadibna xabsiga ayaa loo taxaabay. wax dheerba kama soo wareegan maadaama caddeynba lagu hayay. maxkamadda ayaa isla markiiba la geeyey, iyaga ugu dambayntiina qaadiga uu ku xukumay labadoodaba min 10 sano. bal dhan kalean u soo laabanno. maalmo yar kadib markii la xukumaba ammaanta iyo weliba ninkii kale dhakhtarka ahay, john wuxuu gacalisadiisa u sararay dhankan iyo weliba gurigii kale. oo waxaan ka hadlayaa aluwaya ilmaheedii waxa uu keenay guriga ammaanta ay ku nooleed. intaa wixii ka dambeeyana farxad ayay ku noolaadeen. dhanka kale john marnaba ma uusan hilmaamin gabadhii dhibkan ay ka badbaadaysay. micnaha waxaan ka hadlayaa gabadhii guri la'aanta ahayd. inkastoo waddooyinka uu marar badan ka raadiyey, haddana marnaba ma uusan helin oo waa uu ku guuldaraystay. si kastaba aatee asxaabay sheekadeennu halkaas ayay ku soo dhammaatay. haddaba daawadayaani weydiiye cashir noocee ayaad ka barateen sheekadani? bal fikirkiina kowantigu nagula wadaaga. oo walaalkiina barqadayni leh waxaan kulmi doonaa qisadan qisada xigta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.